saacadihii la soo dhaafay waxaa degmada Oog ee gobolka Saraar ka dhacay mudaharaado ay qayb ka mid ah dadka deegaanku ku taageerayeen khudbadu dhawaan jeediyay siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi ciidamada bilayska iyo kuwa militariga ee Soomaaliland oo soo gaadhay goobta ay dadku ku dhigayeen isku soo baxa ayaa ku guuleystay inay kala kaxeeyaan dadkaasi waxaana ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah dadkii dhigayay dibadbaxyadaasi haddaba si aanu arrintaasi xogo dheeraad ah uga helo waxaanu la xiriirnay oo hadda khadka telefoonka ee telefishinka Ariel ku jira maayirka degmada Oog Cabdinaasir Cabdi Ibrahim maayir ugu horeyn aad soo dhawaanay telefishinka bal sidee wax u jiraan magaalada kama dhici waa nabad qab haye waxa weeye dad nabadgelyo darro sameeyey ayuunbaa dee nabadgelyo darro markay sameeyeen ciidanka boolisku qabqabtay dee markaa wax kale oo dhibaato oo ka dhacayna ma jirto wixii nabadgelyo xumo sameeyana ciidanka amniga wuxuu ku amran yahay inuu wax ka qabto wixii nabadgelyo darro magaalada sameeya maayir nabadgelyo darrada ay dadka xidhxidheen ay sameeyeen maxay ahayd waxay ahayd taageeray gubiyeen waxa weeye sameecaday qaateen ay iska deeda fresh kaga hadlayaan marka waxa weeye dadku waxa weeye qofku mudaharaadku nidaam iyo shuruuc uu leeyahay ma garata haye dadku waxa weeye dad iska ciyaalo iyo dumar waxyaabo darro iskaga soconayay oo nabadgelyo darro sameynayay marka wax intaas ka jirta dadku maxaa sababay in waxaad sheegayso dhan ay sameeyaan wallahi sababta anigu hadeerto ma qeexi karo maalin jimcaha oo cibaadada ahayd oo maalintii lagu talagalay ma ahayn dib iyo waxa weeye hadalba waxa weeye dadkuna maalin cibaadada oo ahayd saakun baa saan is joognay baaba waxaan baawur sameecada la saaray dabadeedna soo baxday baan ku wareelay kabacdi ciidanka booliska ku dalbanay markaan aragnay in sifa khaldan oo nabadgelyada waxyeelaya ay sameynayaan way maayir sidaanu xogta ku hayno dadkani waxay taageerayeen siyaasiga Maxamuud Xaashi idinkuna talaabada qaadeen waxay noqotay in dadka aad ciidan dhex dhigtaan magaaladii ciidan aad keentaan dadka aad xidhxidhaan xitaa waxa indhahaygu qabanayeen muuqaalo la soo duubay oo dumar ay ciidanku si xun u jirdilayaan oo u kaxaynayaan markaas oo lama oran karo idinka laftiinaba foodowda waxay taageerayeen dadkaasi Maxamuud lama oran karo siyaasi Maxamuud Xaashi bay taageerayeen siyaasi Maxamuud Xaashi ay taageerayeen dhibaato iyo qaylo iyo waxa weeye eedadaro laguma taageerayeen sidisaba qofku markuu doonayo inuu taageero sifa shuruuceed iyo nidaam la soo maraa jira haye haddaan nidaamkii soo marin oo aan magaalo iska degan qaylo iyo buuq ka dhex bilowdo yaala dambiilaha marka idinku maxaa doonayseen ma in dadku ay idinkeeda soo maraan oo yiraahdaan waxaanu sameynaynaa mudaharaad aan ku taageerayno Maxamuud Xaashi annagu Soomaaliland ma nisinta waxa weeye marka hore maanta maalin shaqo iyo maalin hadalba ma hayna waa maalin todobada maalmood Ilaahay uu ka dooray maalin jimcaha maalin cibaado waxa weeye sidaa darteed ilaahayna xaq uu nagu leeyahay maalin ummadda muslimka ugu talagalay maalin cibaado haye in dhibaato iyo buuq iyo hawlgalaan loo baahnayn si la keeno ma habboonayn haye waa sidaa sidaan ognahay dastuurka Soomaaliland waxa uu dadka u baneeyay in ay fikirkooda ku cabiri karaan isku soo baxyo ay sameyn karaan idinku soo lama oran karo maadaama dadkii oo isku soo bixi sameynayo fikirkooda cabiraya markaad xidhxidheen soo lama oran karo idinka ayaaba dastuurku jabinaya ana wax shuruuca iyo wax sharciga jabinayna nabadgelyada ciidanka mas'uulku ka yahay anaguna maamulka mas'uul baanu ka nahay maantana maalin hadalba ma ahayna maalin cibaado ahayd saasaan kaaga baxaya marka dadkanaad iminka xidhxidheen noo sheegaysa waa imse qof waxa weeye ciidanka amniga ayaa xilka hawshii ayaa iyaga la weydiinaya ay xaaladda guud ee degmada ka waran iminka waa degantahay Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen telefishinka Ariel Hargeysa